kulan wanaagsan martida kasoo qaybgalayaasha iyo daawadayaashaba waad ku mahadsantihiin kasoo qaybgalkiina doodan waxay idila socodsiin doontaa anigoo ah Naciime Saciid Saalax inta doodan ay socoto waxaan kaga hadli doonaa cashuurta dhijitaalka ah ee 5% ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ku dhawaaqday ma tahay mid cadaalad ah mise ku soo aaday xilligii loogu talagalay xilli dalka ay ka jiraan colaado shaqo la'aan iyo sixir barar baahsan inta dooda ay socoto waxaa dooda qayb ka ah oo inagala qaybgali doona xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya gaar ahaan guddiga ganacsiga iyo dhaqaalaha iyo warshadaha baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed xildhibaan iyo saxafi hore Maxamed Ibraahim Macalimow sidoo kale Xirsiye Cabdullaahi Siyaad gudoomiyaha ururka ganacsatada haweenka iyo sidoo kale Cismaan Macalin Shaatax gudoomiyaha ururka bulshada rayidka waxaa xusid mudan in kulankan aan ku marti qaadnay xubno ka socda wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya balse ay ka gaabsadeen kasoo qaybgalka kulankan intaynan u gudagelin qaybaha hore ee kulankeena bal marka hore aan isla aragno waa sidee aragtida shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ay ka qabaan cashuurta dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay soo kordhisay canshuurta la kordhiyay waxaan u arkaa nin baahan oo la yiri wax bixi nin aan jeebkiisa waxba ku jirin oo la yiri wax bixi madaxweyne dhibkeena hore u badnaa iskoolkii waa lacag biyii waa lacag nalkii waa lacag ijaarkii waa lacag cunadii waa lacag cunadii ma hadda cunaysiinba wax sii dul saaraya madaxweyne taa waa laga fiicaya kama ana filan taas anaga madaxweyne dib isugu noqo ma ka filaynin taas anaga dalkan waxa canshuur bixi waa ognaa waa gobolka banaadir kaliya haddii aan leedahay jiir guri ku jiro albaabkan aan ku soo xirtaa tahay noo sheeg haddii aan madaxweynaheeni tahayna madaxweyne ma qaabili karno waa baahannahay wallaahi waa baahannahay oo bilaahi waa baahannahay oo tallaahi waa baahannahay xasan shiikhow naga xisho dowladda ay ku dayanayso oo adduunka ay ku dayanayso dadkooda yacni canshuurta EVC aanta ka qaado ay dowladda ay ku dayanayso dadkooda walax bay u qabtaan oo waxay u qabtaan waxbarasho free siiyaan caafimaad ayo nooc oo free ka helaan dowladooda dowladdeena waxa ka rabnaa maadaama canshuurtii wixii soo kordhisay dadkaas waxay helaan maadaama dadkaas wixii laga qaaday annaga nagala qaaday dadkaas waxay helaanna inaan helno lacagta anytime waxa yani hadda lagu soo horta waa ganacsatada yani ayaguna waxay sii dul saarayaan waa dadka shacabka ah because qofka ganacsanaya asagoo wax iskama gato wax ka gadanaya waa dadka saas ay tahana wax weyn waa adigu wax adiga haddeerta macno lama ahan ama wax sentiyaala ama $1 bila askarta waa nooga baxdaa si bila askarta waa nooga baxdaa marka dadku inay ka cawdaan maahan canshuurta ee waxa waa inay ka cawdaan wixii lagu qabanayo in dalka lagu dhiso in iskoolaadka lagu dhiso in caafimaadka wax looga qabto in laamiyadan burbursan oo gobolkan banaadir lacagta laga qaaday mogtahay in laamiyada naloo dhiso wahagaag haddii aan intaasi kaga nimaadno aragtida shacabka magaalada Muqdisho ay ka qabaan cashuurahaasi dhijitaalka ah ee 5% ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ku dhawaaqday in markana aan gudagalno martida xildhibaan Cali Mahdi Maxamed oo ah xubin ka tirsan guddiga ganacsiga dhaqaalaha iyo warshadaha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaan ugu horeyn soo dhaweynaynaa xildhibaan soo dhawow bal waxaad faahfaahin naga siisaa cashuur kordhintan xeerarka marxaladaha ay soo martay baarlamaanka ma la hor keenay baarlamaanku se ma isku wada raacay in la ansixiyo oo cashuurtaani shacabka loo soo gudbiyo mise waxay ahayd mid lagu kala qaybsan yahay faahfaahin guud naga sii marka hore bismillaahir rahmaanir rahiim ugu horeysa waxaan salaamayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha iyo martida kulankan xildhibaanka iyo gudoomiyaha inta haddaan uga baxo galab wanaagsan ana waqtiga aada u soo koobaya horta cashuur inaan isla qeexno waya cashuur waxa weeye waa wax ay dowladnimadu u baahan tahay dowladnimaduna ay ku socoto oo dowladdu haddaysan cashuur helin waxa weeye ma gaarayso meeshii la rabay taas waxa weeye kolley ma filayo shacabka Soomaaliyeed ama reer banaadir inay diidan yihiin cashuurta sababtoo ah dee iyagaa qayb weyn ka ah dadka ku nool banaadirna intii 20 sano oo dowlad dhiska lagu jiray waxay ahaayeen dadka iskugu darsameen laba shay marna waxa weeye in iyaga cashuurtii dowladda federaalka ay rangareynaysay oo in iyagu bixiyaan marna waxay ahayd waxyaalaha Soomaaliya ama mashaariic ha noqoto
ama ha noqoto wax dadku lagu deeqo Soomaaliya inay ay soo galaan laakiin su-aasha taale waxa weeye shacabkii waxaa fuulay laba culays mid waxa weeye in iyagina cashuurtii laga qaadayo wax ma loogu qabtay si sax ma loo maamulay musuqmaasuqii ma laga ilaaliyay caafimaadkii waxbarashada wax ma laga qabtay tii beesha caalamku ay inuu ku deeqaysay oo qondo badan banaadir la geliyana wax ma loogu qabtay gacan aamina ma gashay labada waa may sababtoo ah waxaad ka dareemaysaa kuugu filan musuqmaasuqu heerka uu marayo qofku markuu ama systemka ku jiro way ka warhaynaa isaga oo waxa weeye aan hantidiisa loogeyn waxba haysan beri waxaa arkaysaa isagii oo waxa weeye maanta ama dabaqyo ama guryo ama hanti ama Nairobi kule taas waa dood kale oo dabcan doodeena kuma jirto laakiin cashuurta hadda la soo rogay oo 5%ka xukuumaddu kulli waxa ka mid ah guddiga ganacsiga oo geeyay oo waxaanu la kulanay guddiga ganacsiga la kulanay dekedaanu tagnay waxyaalaha marka warbixinta raadinaynay waxyaalo qayr macquul baan noo soo baxay oo runtii markii hore naga xirnaa oo sababtoo ah xogo dheeri aan ahayn markii qayladu ay soo kartay ayaanu helay oo lacagaha laga qaaday ama dekeda gudaheeda ha noqoto ama ha noqoto markii gobolada aadayaan culaysyo runtii loogu yeeri karo magafe shacabka Soomaaliyeed ka qaadaya waxaan qasrada dawladda ku dhacayn horta waxa la rabaa sida ay xalay xukuumaddu ay sheegtay ka hor baa laga rabay laakiin qayladu markii ay timi oo shacabkiina ay kaceen oo ganacsatadiina ay kacday oo aan ka warhayno wadanka dhaqaalaha iyo shaqaalaanta meesha ay marayso inay baarlamaanka soo gaartay kadibna baarlamaanka ka dooday waxaa jiray marka cashuurta marka laga yimaado iyadana culaysyo waaweyn oo qayru sharci ah oo xaaraan ah oo cid gaara lacagteeda ugu dhacaysay oo aan dawladda u xiroonayn oo isbarkanaa oo aad u tiro badan kuwa marka wixii hadda wax laga qabteena waxa la rabaa in ganacsatada iyo shacabku ay ka warhayaan annagana waxaan la rabaa inaan dabagalno sababtoo ah marar badan baa intay qaraaro soo baxaan aan la dhaqangelinteedu kulli waa mas'uuliyad kulligeen ina saaran marka 5% haddaan u soo dhawaado waxay dawladdu ay xukuumaddu ay cuskatay xeerkii January 1984 haddaa baartaan xeerkaas yuu saarayaa cashuurta weeye xeerka cashuurta wuxuu saarayaa waa badeecada soo degta iyo midda jumlada iyo hoteelada iyo warshadaha oo afartaas qodobkiisa koobaad haddii loo raaco xeerkaas ay cuskadeen marka xeerkaasna wuxuu sheegayaa wadanku lacag shilin Soomaaliya uu leeyahay waqti waxa la rabaa cashuurta iyadoo aan la diidanayn in sharciyan looga doodo lacag wadanna wuxuu wax ku yahay waxa weeye waa dhulka iyo dadka iyo lacagta uu leeyahay marka lacagta doolarka horta xeerkaas ma sheegin oo shilin Soomaali buu ah dawladdu xukuumaddu baan leeyahay xeerkaas ay cuskutay haddii xataa lacala xeerkaaba maadaama uu dastuurkeenu qabo wixii xeerarkii hore loo ansixiyay hadduusan xeer jirin isagaa la qaadanaya uu ogol yahay haddii la qaatoba shilin Soomaali waay doodo annaga aan qabno oo shacabka Soomaaliyeed ay ogaadaan waxa weeye lama rabo intii la iska riyoodo in la dhaho ha laga qaado lacagtaas inta la eego doolarka hortay adduunkana lacagaha marka la saarayo currency-gooda lagu cashuura horta waxay dhinaca sharciga marka laga fiiriyo ay ku tahay waxaan qaban karin waxa weeye innaga lacagteenu shilin Soomaali bahayd xukuumaddana waxa laga rabay in shilin Soomaaliga dib u daabacdo marka kadibna cashuuraha lagu qaado sababtoo doolarka inagu malihin waxaan ku soo gunaanadayaa marka maxaa laga rabay marka intaasoo caqabadood oo taagan muxuu xalku yahay wey xalku anagu waxa weeye xamar waa caasimaddii Soomaaliya kow cashuuraha kan la qaadayo hortay ma dawladda dhexe iskale maqaamkii banaadir ma cadiyaal horta cashuurta cidda iskale oo accountable u noqonaysa yay noqonaysa waxa laga rabay marka xukuumaddu caqabadaha la rabay inay xaliso waxay ahayd si cashuuraha loo mideeyo soo dastuurku qabo waxaan filayaa qodobka 122 in siyaasadaha maaliyadda miisaaniyadda ee dakhli ururinta laga heshiiyo marka kadibna laba cashuurood baa ka dhalan doona mid dawladda federaalka iskale midna state-ka iskale marka cashuurta tan la qaadayo ma cid gaar oo gobolka Banaadir baa laga qaadaya oo gobolka Banaadir baa iskale ma dawladda dhexe iska leedahay wax ka weyn baa laga rabaa waxa laga rabaa inay isteedyadii raadiso oo cashuurtan shacabka Soomaaliyeed in la wada saaro waxa kale oo laga rabaa midda kale ugu dambaysa ku gunaanada waxa weeye
cashuuraha la qaado in dadka lagu qabto adeeg waxbarasho iyo caafimaad tabartooba iska yarba ma musuq maasuqa see looga ilaalin karaa iyadana kolley baarlamaanka iyo salaxslaabtiskiisa saaran tahay shacabkana waa laga rabaa ilo iyaga cashuur bixiyaa gunaanadkaygu waxa weeye kolley wixii su-aala diyaar baa unahay laakiin cashuurtaas marka dhinaca sharciga loo eego anu waxaan aaminsanahay inay tahay mid aan sax ahayn sababtoo ah xeerka ay cuskanayaan 4 qodob buu sheegayaa afartaa meelood kaliya laga qaadi karaa waa warshadaha iyo badeecada jumlada ah iyo hoteelada qaansheegadkooda saasaa ku qoran xeerka ay dhejisteen marka haddii ay qaadayaanna waa in taas laga qaado lagu qaado marka anu midaasaan kolley aragti ahaan aan ku aaminsanahay waana mahadsantihin waa mahadsan tahay xildhibaan cali mahdi markana waxaan soo dhaweyn doonaa xirsiye cabdulaahi siyaad xirsiye soo dhawow waa sidee aragtida ganacsatada yaryarka ah ay ka qabaan cashuur kordhintan ma isleedahay waa u hogaansami doonaan oo ay ku qanacsan yihiin inay u hogaansamaan sharcigan iyagoo samaysanaya merchantiyo cashuurtaasi ay kaga go'i karto bismillaahi raxmaan raxiim waa idin salaamay dhammaan martida fadhida meesha iyo dadkeenaan akhyaarta xildhibaanada iyo maaragta arrimaha bulshada iyo wariyaheena xiriirinta iyo dhammaan waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddii aan ka hadlo canshuuraha runtii horta canshuur marka la yiraahdo dowladda tiirka ugu weyn canshuuraha waaye dowlad inay dhisanto waxa ugu weyn waa inay canshuur heshaa wixii marka waxa loo kala qaadaa labo مثال ahaan dowladda hadday canshuur qaato waxaa la rabaa waxa iyada waajibku ku ahne inay samayso waxaa la rabaa dadkan xamaaliyaasha oo halka doolar soo helayo oo haddana la dhahaa waxaad bixinaysaan canshuur in ayaga shaqo loo sameeyo oo wasaaradihii laga shaqaaleysiiyey ayaga ay mushaar qaataan dowladda markii shacabkeeda ay shaqaalo wada yihiin canshuurta ganacsatada way bixin kartaa laakiin shaqaalo ma jirto shaqaalaha jira iyo kuwa hadda dhisanna aniga sidii dowladda uga qaadaysa iyadaa og laakiin waxaan ka hadlaa aniga dadka ganacsatada ah ee xamaaliga ah ee maamada qudaarta gadaysa ah maamada hilibka gadaysa ah ee haddana iyadoo la dul taagan yahay oo munishibiyo qolo la dhahayo intay u yimaadaan subax kastaba ay ka qaadayaan lacag haddana la yiraahdo lacagtaadii emergencyga lacagtii lagugu soo diray canshuura ka bixayso horta culays ay leedahay oo haddana aynan haysan suuq ay ku ganacsadaan ma haystaan ilmaheedii waxbarasho oo ma aragtay aan lacag keen la dhahaynin ma haystaan koronto dowlad ay bixinaysa ma ahan oo qiimo jaban ku baxaaya ma ahan waa koronto iyadana ganacsato ah oo ma aragtay qaali ku baxaayo biyaha saas oo kaleeto biyo dowladii ay bixinayso oo qiimo yaroo jaban ku baxaayo ma ahan nacam dadka markaa fiirsid noloshooda runta hoos loo dhexgalo canshuur ma ku waajibto kaliya canshuurta annaga hadda sidaan ognahay ganacsata haddaan nahay dekeda waa lagu soo canshuuraa dekeda marka canshuurtana looga soo qaado qofkii wuxuu leeyahay shati ganacsiga waa rajisgaraysiyan shati uu leeyahay sanadkii waxaa laga qaadaa canshuur laba weli laga qaadaa midna waxaa la yiraahdaa canshuur wasaaradda maaliyadda ayaa u fadhido wasaaradda ganacsiga ay u dhex fadhidaa oo shatiga ganacsiga hadduu kaa dhaco adiga waxba ma soo degsan kartid waxna ma dhoofin kartid haddii shatiga uu kaa dhacana waxaa lagu leeyahay lacagtii shatigana bixi lacagtii canshuurta bixi lacagtii daabacaadda shatiga lagugu daabacayay bixi waxyaabo badanaa marka isdul saaran laana in waxaas la kala shaandheeyo la kala bixiyo jadwal loo yeelo qofka markaas isagaa isxilqaama markuu helo qofka cadaalad wax walba in lagu qabanayo asigaa isxilqaamayo hooyooyinka oo ganacsatada ah ma qaylin karna annaga ganacsataan nahay buuq ma rabno dadka hadda annaga ganacsiga nagu soo rogaayo oo madaxweynaha iyo wasaaradda wasiirka maaliyadda iyo dowladda oo dhan adiga joogo hooyaa soo korisa waa annaga ilmaheennii waay haddaanan aniga dhalin ama walaashay ayna dhalin hooyo kaleetaa dhashay oo hooyadaas dhashay dowladda wiilasha hadda xukunka wada haayo oo dhan
in la dhibaateeyo ma ahan waa in jadwal loo sameeyaa waa in la yiraahdaa horta yaa canshuur bixinayo mideeda kaleeto dhibaatada hadda magaalada ka taagan fahanka canshuurta dadka ma fahansano yaa bixinayo yay ku waajibtaa yayna ku waajibin dadkii ma fahansano marka aniga tale waxaan kusoo jeedin lahaa kulley dood way sii soconay su-aalaha way soo noqnoqonayaan canshuurta koo waxaa laga rabaa dowladda inay horta xoogga saarto wax soo saar si ay canshuur u hesho beeraleydii waa kuwaana xamaaliga ah magaalada socdo ee lagu qasbaa inay canshuur soo saaraan laakiin markii beerihii dib loogu celiyo oo beerahoodii loo maalgeliyo oo beerahoodii ma aragtay webiyadii loo qodo oo webigan oo iska soo budaacayo qashinka ka buuxo webigii laga bixiyo oo kanaaladii loo sameeyo oo qalabkii ay wax ku beeran lahaayeen beerihii dadkaan dariiqada wada taagan oo wada tuugsanayo kulli beerihii waa beerihii in dib loogu noqdo marka waxaan leeyahay haddii la rabo wadankan inuu istaago canshuur wuu helaa laakiin systemka oo canshuurta ku heli lahay oo fiican oo dowladda iyo shacabkan ay raalli isaga yihiin ha la soo saaro qofka canshuurta bixinaa waa inuu helaa meel income ah uu asiga wax ka soo helaayo nin xamaali ah ama hooyo saaka neef ari ah soo qashay markay neefka ariga suuqa ka soo qaadato waxaa laga qaadaa canshuuraa laga qaadaa canshuurtaasi yaa iskale qolada suuqaad samaysatay aniga hilib haddaan doonto ari waxaa leeyahay intaasoo canshuur 30 kun oo canshuuraha la iska qaadaa ma diidi kartid qolaa samaysatay hadda dowladii canshuur kale kusoo rogtay hilibkii markii la qalay lacagtii la ii dirayay aniga haddii anigana haddana canshuurtii la iga sii goosanayo macnaheeda guryaha la iska fadhiyo waxba yaan la shaqaysanin waayo wadanka hadduu shaqo la-aan noqdane waa la iscunaa marka arrimahaas waxaan leeyahay waxay u baahan tahay wacyigelin fiican dadka canshuurta ay ku waajibto iyo dadka ayna ku waajibin horto in wacyigelin laga sameeyo oo la fahansiiyo dadka xirsiye aada u mahadsan tahay waxaan usoo noqon doonaa maxamed ibraahim macalimow xildhibaan soo dhawow sidee ayay warbaahintu si siman ugu soo tabin kartaa cabashada shacabka mase is leedahay dowladdu way u hogaansami doontaa cabashooyinka kala duwan ee kasoo yeeraya bulshada ee warbaahintu ay soo tabinayso بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين marka hore waxaan bogaadinayaa bilan media oo hay'ad gabdho Soomaaliyeed oo saxafiyiin ay socodsiiyaan oo hawsheeda wadaan doodana runtii waa dood aad u qiimo badan horta intaan ka hadlin arinta saxaafadda iyo sida loo soo tabinayo waxaan jeclaan lahaa inaan wax yar ka iraahdo arinta canshuuraha canshuur horta in la qaado sida xildhibaanku sheegay sida maaragtay la wada sheegay waa qasab macnaha waa waajib sababtoo ah dal ma hormari kara haddii aan canshuur la qaadin marka waxaa isgarab yaalla laba arrimood aada muhiim u ah dad liita oo aan maaragtay dagaal sokeeye kusoo dheeraaday oo bulsho dhibaataysan oo shaqo la-aan ay jirto oo baahsan sanad walba intaas oo arday ay jaamacad ka soo baxayso oo aan waxba haysan culays dhaqaale saaran yahay iyo dowlad ayadana sidaas la mid ah oo ka soo baxaysa waqtigaas adag ee la rabo inay isku filnaato marka waa laba daran mid doora meel walba oo la aado dhinac walba dhibaata ka jirta marka haddii loo baahan yahay in canshuur la bixiyo waxay qasab noqonaysaa marka in inta awoodda leh ee shaqaysata laga qaado canshuur marka in la qaado la iskuma haysto waxaan ku waafaqsanahay xildhibaanka iyo maaragtay sida maaragtay maamada u sheegtay laakiin waa garan kartaa dalkeena adduunka 2 sano hadda kadib waxaa la leeyahay waxaan idinka joojinaynaa kaalmada aan idin siino ee Soomaaliya haddii la rabo marka inaan isku filnaano maalin walba haddaan xalanana halka maamulo oo aan maalin walba dad u hogaansano ayadana mushkilad weyn oo wadankeena aan horumar la gaarayn dadkeenii dhibaataysnaana waxaan rabnaa inaan dhibaatada ka saarno marka waa arrin u baahan si maaragtay taxadar leh in looga fiirsado mararka qaarkood adduunka marka laga hadlaayo xagga taxationka ama maaragtay canshuuraha waxaa la yiraahdaa waa sida canug yar oo kale oo u baahan sharoobo ay caafimaadkiisu ku jirto canugaas yarka ah marka la siinayo sharoobadaas qaraarka ah ma cabaaye garbaha inta gacmaha laga qabto ayaa maaragtay xoog lagu siiyaa sababtoo asay dan u tahay marka qaarkood in cashuur la qaado marka waa sidaas laakiin sidee loo qaadaa intee la geynaa mushkiladda haddana haysata cashuur dadka Soomaaliyeed intaan arkay ganacsatada intaan arkay cidiiba ay ka go'do dadka dhibaataysan maahe inta kale intii ay ka go'do inay bixiyaan way rabaan laakiin waxaa mushkiladda ka taagan tahay sida loo maareynayo habka dhaqaalaheena weli Soomaaliya dalkeenu weli waxa uu yahay dalka
ugu musuqmaasuq badan adduunka transparency solution haddaa fiiriso Soomaaliya iyada ugu musuqmaasuq badan sababtoo ah waa sida aan u maamulno oo aan u handal gareyno lacagahaas iyo waxaas soo qaaday dadka Soomaaliyeed siday sheegtay maaragtay waxaa qof walba uu diyaar u yahay inuu bixiyo laakiin marka uu arko oo kalsoonidii ay timaado marka waxay u baahan tahay kalsoonidii in la dhiso laga shaqeeyo maaragtay kadibna dadka Soomaaliyeed cashuur ay bixiyaan annaga ani tahliil iyo waxa ku soo gaarnay ayadoo dadka Soomaaliyeed qofka oo cashuurta qaada ama la leeyahay maaragtay minshiib la dhihi jiray aan salaada xataa lagu xirinayn dadka Soomaaliyeed fahamka ay ka fahamsanaayeen sida ay u fahamsanaayeen laakiin maanta maaragtay xaaladdu waa ka duwan tahay marka waxaan rabnaa qofkaas maskiinka ah waxbarashada lagama qaado caafimaadka lagama qaado biyaha lagama qaado adduunkan dariska oo dhan waxaa wax laga qaadaa cidda wax haysata marka ciddii wax haysatay iyo ciddii aan wax haysanayna waxaa la yidhi 5% ha lagu soo rogo marka sax ma ah 5% kan haddii shirkadaha waaweyn ee corporate-ka haddii la yidhahdo waxaa laydinka qaadaa 5% hadda waa ku raaxaysanayaan waxaa meesha ku baaba'aya marka kii dhaqaalihiisu hooseeyey kaasna adduunyada waa la kabaa marka waxaa dowladdu waxaana la kabaahan yahay annaga baarlamaanka aan u horeyno inaan sharci u keenno oo sharcigii dadkaas marka hore kala saari lahaa la keeno tariifooyinka iyo sida wax u kala baxayaan la qaybiyo sharci loo soo saaro sharciga la isticmaalayo sida hadda la sheegay waa kii 1984 oo dowlad dhexe ay ahayd marka waxaan u baahanahay in sharcigaas asna baarlamaanka in dib loo keeno oo leesinimada ay ka baxdo dowladda baarlamaanka lagu soo celiyo laga shaqeeyo sharcigaas asoo updateda la sameeyo warbaahinta runtii waxay u dhaxaysaa shacabka iyo maaragtay waxay u dhaxaysaa dowladdu waxay had iyo jeer ay tabisaa dhibaatooyinka jira sida hadda aan maqlaynayba dadka Soomaaliyeed aragtidooday muujinayaan marka aragtidoodaas oo mararka qaarkood ay ku kala duwan yihiin ayay warbaahintu ay qaabilsan tahay inay soo qabato laakiin waxaa laga yaabaa mararka qaarkood in dowladdu aysan fahamsanayn oo warbaahinta haddii ay qof dowladda duraya ay aragto inay u qaadato in dowladdii bartilmaameedka uu yahay oo wax laga sheegayo waa meeshii ay maraayadda ahayd iska arki lahayd dal aanan lahayn warbaahin maaragtay madax bannaanna sidiisaba adduunka hadda horumar ma gaaro marka warbaahintu waa tiir aad muhiim ugu ah bulshada waxaa la rabaa inay ayagana hawshooda u gutaan si maaragtay professional ah oo xirfad leh oo dadka Soomaaliyeed ay u soo gudbiyaan wixii dhibaato oo jira sidoo kalena maaragtay wixii kale ee dowladdu ay hayso xogta dowladdu ay hayso mararka qaarkood dowladdeenu ma fahamsana xogta in xaq loogu leeyahay sharci waxaa jira baarlamaanka la mariyay dastuurka qodobkiisa 2 wuxuu leeyahay qof kasta oo Soomaali ah waa inuu xaq u leeyahay inuu xog helo wuxuu qofku xaq u leeyahay inuu aragtidiisa cabiraa waxaasoo dhan nidaamka dastuurka aan leenahay ayaa tilmaamaya oo hadda kan aan haysana xitaa oo maaragtay kumeel gaarka marka waxaasoo dhan dowladdu kuma baraarugsana dal meel dheer ka yimid aan nahay laakiin waxaa mid ah inaan isku waafaqno in cashuur ay laga maarmaan tahay in dowladdu qaado dowladda imaan doontana way qaadi doontaa tii horena way qaadaysay weliba mar kastoo dowladnimadeennu ay sii xoogaysato waxaa kordhi doona cashuurtaa sii badanaysa marka waxaa keenaya dowladnimadu markay xoogaysatana waxaa imaanaya qof walba maaragtay in la yirahdo wax ku shub adduunka waa transparency wadankan Kenya hadda ayaan dhexdaas waxaan rabay book inaan soo waxa u dirsaday aan rabay inaan ka soo gato meel maktabada ku taal London online kan ka iibsaday bookii waxa lagu keenay Kenya markii aan rabay inaan soo degsado waxa la yiri KRA waxa Kenya Review Authority hay'ad madax bannaan waayo waxay leedahay qof kasta oo ganacsi ama qof kasta wax soo degsada number uu leeyahay aniga numberka ma lahayn in maaragtay ganacsi waxa ku yiri isha KRA isaga ii soo qaaday bookii soo qaadeen markuu leeyahay qofku waxa la leeyahay lacagtaas bix lacagtii maaragtay la shubay lacagtii marka la soo qaaday waa book hadda waxaan ka hadlayaa laba book oo maaragtay oo caadi oo rabay markaas inaan akhristo lacaga ku dhow macnaha rubuc ama lamida lacagtii laga soo bixiyay hadduu $15 ahaa $5 lacag ku dhow $4 laga qaaday marka lacagtii la soo qaaday oo la keenay waxaa laga yaabaa shirkadda haddana inay maaragtay santiye wax ku sii saarato adduunka marka xagga joogno marka waa bixinaynaa markaan Kenya joogno waa bixinaynaa laakiin marka halkan joogno inaan bixin weyno waan su'aal ka keenaa ayada lafteedana waxa u baahan tahay in aad looga munaaqashado maxamed ibraahim macalin oo aad ayaad mahadsan tahay markana waxaan soo dhaweyn doonaa Cusmaan Macalin Shaatax Cusmaan soo dhawow waa sidee aragtida shacabka ee ku aadan cashuurtan digitalka ah ee 5% ma tahay mid ay isku raacsan yihiin cabashada bulshada si ma kala hadasheen dowladda federaalka ah ee Soomaaliya aad u mahadsantahay marka hore waa salaama aan u mahadcelinaa Bilan Media oo soo qabanqaabiyay platformkan waxaa marka labaad salaama
mudanayaasha baarlamaanka oo igula jiro ma aragtaa banelka iyo gudoomiyaha haweenka ganacsiga oo haweenka. horta runtii mar kastaba waxaa habboon dowladda inay qiimeyso dadkeeda iyo marxaladda markaas lagu jiro. dalkan wuxuu ku jiraa dowlad dhis. markuu dowlad dhis oo ku jiran waxaa waaye tallaabooyinka uu qaadaa waa ina step by step loo qaadaa. marka aad fiirisid fahamka dadka oo ku aadan canshuurta iyo marka aad fiirisid qaabka ay u bixinayaan iyadoo aan laga hadlin see dadka canshuur loogu qaadaa ayaa waxaa lala soo orday canshuur hala baxsho. waana meesha aan isleeyahay caqabada ay ka jirtaa. maxaa yeelay canshuurta waa waajib waana muhiim. dowladuna canshuur la-aan ma shaqey karto. laakiin canshuurta intaan la qaadin ka hor waa in tallaabooyin la qaadaa. markii la qaadana tallaabooyin gadaal laga qaadaa inay muuqdaan waayo. taa marka waxaa ka wada horeyso dalkan waxaa la yidhi federaal u qaatay. marka federaal la yidhaahdo canshuurta waxay noqonaya canshuur federaal ah. dowladda federaalka canshuur ay leedahay, maamul goboleedkan canshuur uu leeyahay, degmadana canshuur ay leedahay. waa saddexdaas canshuur ayaa dadka ku waajibaya. mid degmada ah, tan maamul goboleedka iyo tan federaalka ah. wax heshiis ah oo rasmi ah oo laga gaaray oo aan ognahay ma jiraan. haddee jiraanne wax dhaqan galay ma aha. taa marka iyadoo la fahansaneen oo waxba la iska oran ayaa haddana in canshuurtan la qaadayo oo VAT-ga ah wax cusub maaha. laakiin dadku waxay u baahnaayeen kow in horta wacyigelin la siiyo, labo in la baro canshuurtan faa'iidada ay leedahay iyo sababta loo qaadayo. markii intaa dadka ay fahmaan wacyigelinna loo sameeyo, haddana markay canshuurta bixiyaan qaabkay u baxday iyo sida loo baxshayna inay arki karaan. oo arrinta hadda macluumuhu ka hadlaya oo ah in xogta la ogaa karo. war dowladda sanadka meeqa lacagaa soo gashay sida lacagta u baxday in la ogaa karo. dadku markaa waxay dareemayaan waxa ay baxsheen in iyo meeshay ku baxeen markay arkaan inay su-aalaha badan ay yareeyaan. waxaa kaloo muhiim ah iyadana oo meesha ku jira ay tahay tariifada canshuurta sida loo goynayo. VAT-ga meel kastoo aad jirta adduunka waa sax, laakiin markay timaado soomaaliya oo kale hadda waxaa moodaa in laga soo qaaday maaragta celcelis laga soo qaaday oo aan loo qiimeyn iyo ku waajibtaa iyose ku waajibin. category in loo kala sameeyo, meelaha ku habboon inay baxshaan iyo meelaha kale aan ku habbooneyn in laga baxsho canshuurta. iyada naftirkeeda wax laga hadlay markaa fiirisid. marka dareenka dadka markaa fiirisid uma arkaan canshuurta dadka ay bixinayaan inay tahay mid iyaga loogu adeegayo. waana tan mar kastaba ay dadku ka muujinayaan shakiga. maxaa yeelay ma helaan feedback meeshii wax ku baxeen iyo sida wax u baxeen. xogtaas ma helaan. maadaama xogtaas aysan helin waxay shaki badan ka qabaan lacagta la qaadayo meesha ay ku baxayso. waxay u arkaan inaysan ahayn mid iyaga loogu daneynayo. taas waa fikir caam ah oo jira waayo. tan kale oo meesha ku jirta waxay tahay dadka muddaa dagaalka soo socday dowladnimada hadda la dhisoyaa. fahamka dowladnimada dadkii inay fahmaan in canshuurta muhiim tahay. waxaasoo dhan waxay u baahneed in dadku la baro ee fahmaan. munaashaqad badan laga sameeyo, doodo badan laga sameeyo, dad badan oo waxgal ah iyo dowladdu ay fadhiistaan laga hadlo. sida hadda ugu hadleeno in laga hadlo inta aan waxba la soo saarin, kadibna dadkii oo diyaarsan ama qaarkood ay diyaarsan yihiin loo soo bandhigo markaas ama tallaabadii la qaadi lahaa markaas la qaado iyadoo la xaqiijinayo canshuurta laga qaado meesha ay ku baxayso. intaas horta waa wax caam ah oo u baahan canshuur haddii la qaadayo dal kastana ee muhiimadaas ay leedahay in tallaabooyinkaas la qaado. annaga maxaa intaa noo dheer marka waxaa noo sii dheer kalsoonidii oo maqan. waxaa arkaysaa intaan VAT-ga hadda laga hadlin canshuuraha waxaa arkeyna guryaha la qaadayo tii wasaaradda maaliyadda arkeene in shirkado la siiyey oo gaar ah
shirkadahaas oo aan markaa ahayn shirkado loo yiqiinay ganacsiga amaba u badanba kuwa loo samaystaba inay howshaa qabtaan hala siiye maxay sameeyeen waxay xadgudub ku sameeyeen shacabka qaabka cashuurta u qaadayaan wuxuu noqday qaab xadgudub ku sameynaya shacabka oo ah in qofkii inta gurigiisa la tago albaabka laga soo siibto in inta gurigiisa la tago kan ugu horey albaabka furo la iska soo xiro dadku waxay dareemeen marka wixii laga xoogayo marka taa marka waxaa meesha ka baxday war aniga dowladnimada dadka dowladda u shaqeeyo mas-uuliyadda dowladda dad ani aan wakiisho inay ii shaqeeyaan waay lacagtay ku shaqeyn lahayn cashuurta aan dhiibayo mushaarka laga siinayo waay dadka marka dadka noocaas waay mas-uuliyadda shaqaalaha dowladda dhammaan waa shaqaalo u shaqeynaya shacabka ha u shaqeeyaan shacabkana waxay ku shaqeyn lahaayeen waa waxay cashuurta ka imaanaysa waay haddii marka kii aniga aan shaqada u dirsaday uu iisoo qaato qori oo iga adeejiyo dad kale runtii waxay dhaawac gaarsiisay kalsoonidii shacabka taas ayaana shaki badan waxay ku abuurtay in VAT-ga aan la fahmin isagoon wacyigelin badan laga sameyn dadkii aan la barin waxaa meesha ka abuurmata marka in reaction badan oo xoog leh oo ka yimaado waxaasoo dhan waxaa isleeyahay qoladka wuxuu ka yimid howl kastoo la qabanayo shaqo kastoo la qabanayo haddii jidka lagu qabanayo uu qaldan yahay maxsuulkeeda waa qaldanaana wax kastoo fiican waa macno beelaya waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee doodeena markana waxaan waqti siin doonaa kasoo qaybgalayaasha doodeena oo su-aalaha ay qabaan ee ka dhex guuxaya weydiin doona mas-uuliyiinta kala duwan ee madashan martida inoogu ah soo dhawaada qof walba meeshiisa ayuu ugu imaan doonaa microfonka Bilan Media balse waxaan marka hore codsanaynaa in deganaanta meesha aynu ilaalino sidoo kalena qofka uu ku bilaabo marka ugu horeysa magaciisa kadibna uu ku xigsiyo aragtida markaas uu qabo su-aasha ku aadan isagoo waliba xulanaya qofka markaas uu rabo inuu uga jawaabo su-aashaas bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa Nuur Cabdi Muuse kana mid ah ardayda dhigata jaamacadda ummadda Soomaaliyeed waxaan salaamayaa dhammaan mas-uuliyiinta halkan fadhisa waxaan ku salaamayaa qof walba mansabka iyo magaca uu meesha ku fadhiyo sidoo kale waxaan salaamayaa kasoo qaybgalayaasha haddii aan intaas uga gudbo oo aan ka dhiibto aragtidayda nuxurka dooda waxaan weydiin lahaa kolley waxaan malaynayaa kolley su-aalahan badankooda aan qabo waxay ku socdeen wasaaradda maaliyadda kolley waxa waaye hadda waxaan malaynayaa xubin ka socota inaysan meesha joogin marka fikradeyda haddii aan u weeciyo kow waxaan su-aal weydiinayaa xildhibaan Cali Mahdi xildhibaan waxaa tiri haddii aan qaldanayn waxaan ka mid ahay guddiga ganacsatada oo kulli baarlamaanka u qaabilsan waxaa ka dhawaajisay inaad sheegtay inaanan ka warqabin cashuuraadka ama lacagaha sida sifada aan sharciga ahayn looga qaado ganacsatada aadna ku baraarugteen hadda markii ay caldhaantii kor soo baxdeen ma la dhihi karaa haddii ka naftiinu dayaca qayb baa ka aheedeen oo mas-uuliyaddii laydii igmaday ayaad waxa ayaa hilmaanteen bismillahi rahmaani rahiim waa maxamed maxamed macallim kana mid ah ardayda wax ku barata canshuurta dhigta jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ani hal su-aalaan qabaa waan rabo inaan weydiiyo xildhibaanka xildhibaan Cali Mahdi xildhibaan su-aasha aan rabo inaan ku weydiiyo waxay tahay idinkii shacabkii aad matashaan shacabkan waxaa ku matashaan wax allaale wixii dowladdaas ay qabanaydo in idinka anaga wakiil nooga tihiin sidee ku dhacday inaad tiraahdaan xildhibaanadiina kamaana warqabin barnaamijkan